Markab ay saaran yihiin dalxiisayaal kana soo sharcacda dalka Jarmalka oo ku soo jeeda dalka Norway oo ay saarnaayeen ilaa iyo 1,200 oo rakaab ah ayaa lagu soo waramayaa in uu ka dilaacay caabuqa ama fayraska loo yaqaano norovirus-ka oo ku dhaca caloosha iyo mindhicirada. Markabkan ayaa ku sii jeeday deegaanada waqooyiga Norway ee Finnmark waxaana lagu soo waramayaa in tiro aad u badan oo dadkii saarnaa ah uu ku faafay caabuqan sida degdega ah u faafo. Remi Sulber oo ah wakiilka markabkan ayaa ku waramaya in markii ugu horreysay lagu soo wargeliyey in uu ku dhacay fayraskan aadka u faafo ilaa iyo 50 qofood oo ka mid a rakaabka saaran markabkan, ha yeeshee markii dambe uu sii ballaartay oo uusan garanaynin tirada rasmiga ah ee uu waxyeelada u geystay fayraskan sida degdega ah u dilaaco. Kusimaha dhakhtarka degmada Vestevoga oo uu markabkan gaaray ayaa ku waramaya in aysan aad uga walwalin caabuqan lagu soo wargeliyey, waxa uuna sheegay tirada ugu dambeysay ee ilaa iyo hadda ay ogaadeen in ay gaarayso ilaa iyo 200 oo qofood oo ka mid a rakaabkan. Waxa uuna intaa ku daray fayraskan faafa ee ku dhaca caloosha iyo mindhicirada uu si aad ah ugu faafay markabkan oo ka soo shareecday Jarmalka kuna soo jeeda dalka Norway. Intii uu jidka ku soo jirana uu dadkii saarnaa qaybo badan oo ka mid a uu waxyeelo u geystay. Fayraskan ayaa ah mid aad u faafo oo si dhaqso leh ugu fida dadka iska agdhow ama wax isla cuna ama wax isla cabo. Waxa uuna si xawli ah ugu dhacaa caloosha iyo mindhicirada kaasoo qiyaasta uu ku faafo aan la saadaalin karin sida uu sheegay Machadka Caafimaadka Dadweynaha Norway. Sida uu qorshuhu ahaa, markabkan ayaa ku xiranayay deegaano dhowr ah oo ka tirsan dalka Norway kuwa oo ay dalxiisayaashu aad u jecel yihiin xilliga samarka in ay ku damaashaadaan kuna dalxiisaan. Halka ay wararka ugu door karoon idinkaga imaanayaan waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdulaahi Shiine.